maanta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan soo jeedinayaa go'aan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan. waxaan warbixintan ku soo jeedinaynaa xafiiska guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan. waxay tahay ogeysiiskaasayto inaan rabno inaan qabano doorashadii ku celiska ahayd ee kursigii ka bannaanaaday deegaan doorashada Galmudug. kursigaas oo ka bannaanaaday golaha shacabka oo ka dhintay Allah u naxariistay marxuum Bootaan. waxaan ogeysiinaynaa musharaxiinta, waxaan ogeysiinaynaa ergada, waxaan ogeysiinaynaa odayaasha ka mas'uulka ah, waxaa kale oo ogeysiinaynaa on kana codsanaynaa maamul goboleedka Galmudug sidii uu warqada noogu soo qoray madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Ducaale xaaf oo ahayd uu naga codsanay inaan doorashadii qabano kuna qabano magaalo madaxda ee Muusamareeb. marka ogeysiisku wuxuu ku saabsan yahay bisha 12keeda bishan April ee hadda ku jirin 12keeda oo ku aadan tahay maalinta Khamiista ah in safarkii la gali doono oo ergadii wixii inta jooga la qaadi doono kuwii xagga jiran inay xagga ku diyaar garoobaan. tan kale waxaan kaloo rabnaa inaan qabano doorashada haddii Ilaahay idmo maalinta doorashadu inay noqoto bisha 15keeda oo ku aadan Axadda soo socoto tan biri amaana tan kale ee toddobaadka kale ah oo aan qaban doono doorashadii. inta ka horeysana waxaan fulin doonaa macluumaadkii looga baahnaa in doorashadaas lagu qabto ama shuruucdii ha noqoto ama foomamkii la buuxinayo ha noqoto ama warqadii aqoonsiga oo la sameeyay ha noqotee. waxaan ka codsanaynaa maamulka Galmudug in ay noo diyaar garoobaan haddii Ilaahay idmo. waxyaabaha aan aad uga baahanahay xagoodana waxa waaye goobtii doorashada lagu qaban lahaa iyo ciidankii iyo nabadgelyadii sidii loo ilaalin lahaa doorashada nabadgelyadeedii. waa mahadsantihiin. waxa aan sugnaa waxa waaye maalinta 12 oo safarnaay 15 doorashadii qabano oo bishan April ee aan ku jirno ay tahay. wax kastana waxa mas'uul ka ah guddiga doorashooyinka ergada safarkooda maamulidooda hoygooda waxaa mas'uul ka ah guddiga doorashooyinka kaliya. waxaa laga rabaa inay u soo diyaar garoobaan inay cod bixiyaan. musharaxiintana waxaa laga rabaa inay u soo diyaar garoobaan inay u tartamaan doorashadaasayto meesha ay joogaan oo la dejinayna ergada musharaxiintu waa u siman yihiin, waa u madax bannaan yihiin siday rabaan uga dhex loobin uga sameyn karaan goobta ay joogaan xoray u yihiin. waa mahadsantihiin. Ilaahay ha noo kaso doorashadaasayta inaan si nabad ah oo qeyr qabta ku qabano. Ilaahay ha noo kaso in muxuu ahaa sida ugu habboon inaan ka dhigno oo daah furan oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto ay ku qanacdo. waa mahadsantihiin.